السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى الله السلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وما سنتين دمانتين انت نيس وتأسيسي خير الله ينسي. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله طهور إن شاء الله إن شاء الله. ولا ليال walaalayaal dadka halkaan uga fahaya walaalahay beesha Isaaq fadlan ha u gafina yani ceeb. walaalahay Isaaq ay soo dhaweeyeen, way sharfeen, way karaameeyeen. wax dhibaato ah ilaahay baa qadaray, dhibkan waa dhacay. dadkuna waa ehel, odayaal bay leeyihiin, guurti bay leeyihiin, dhaqan bay leeyihiin, culum bay leeyihiin. wax magarad baa waxaan ii geystay, dhibka ii geystay. waxaan waxay ku tusinaysaa dulmiga ka jira Soomaali weyn, meel walba ka jira, isku mid ay tahay. marka anigu walaalahay beesha Isaaq waa dad sharaf leh, waa dad karaamo leh, dad goba weeyaan, dad ciise la weeyaan. waxaan jeclahay, waa ehelkay, waa sokeeyahay, waa dhiigay, waa dhacaankay. allah ciise. marka fadlan yani ma yani yaan loo gafin oo beesha loo gafin haddii la akid maayo. waa jiraan rag siyaasiyiin ama madaxa oo aniga dilkayga ku raali gelinaya dowladda Itoobiya. marka walaalayaal dadku dad sharaf la weeyaan, laakiin waxaa jira dad u shaqeeya Itoobiya oo shacabka gumaysta, culummada iska xirxira, dadka caburiya, kii wadaniya god dheer ku rida, ku raaligeliya dilkooda iyo xabsigooda iyo jirdilkooda dowladda Itoobiya. anigu waxaan idin leeyahay marka ha ka teginina Soomaalinimada, islaamnimada, walaalnimada. kulligeen walaalaynu nahay, daarood, Isaaq, Hawiye, dhammaan qabiilada Soomaaliyeed, dir iyo daarood walaalaynu nahay. maantayn Itoobiyaanka ninkii ahaa uu daaro dhaadheer ka jeexday magaalada Hargeysa, kuna faanaya badda berbera isagu inuu leeyahay. aniguna saacaddaas meel kasta la jebiyey, dhabarka dhaawac naga gaaray, qoorta dhaawac naga gaaray, madaxa dhaawac laga gaarsiiyo, dhiig inuu ugu furmay ka baqayo, xiniyahan laga garaacay. anigu saas dhaawac u ah, haddana saacaddaas aan ku dhuumanahayo
meel ilaahay og yahay oo qaybta howlgalka ee booliska oo ay ceyrsanayso oo ay goobayso saacaddaas waxaa su-aashu ay tahay yaan dembi ka galay, maxaa laygu dilahayaa, maxaa laygu ceyrsanahayaa, maxaa lay fungarahayaa, maxaan galabsaday. ninkii taliyaha ee labiska anuu halkaan sida aan ogaaday tuulo walba iyo degmo walba qabiilka jooga iyo xaafad walba ayaa xukuma. waa maleeshiya beeleedka ka jira magaalada muqdisho oo kale waa tabtaas bay shacabka ii qeexeen markaa yaro maxaa la ii dilay. maleeshiya beeleedka muqdisho ka jira oo kale qayb walba tuulo walba iyo xaafad walba dadka degan beeshooda ayaa hubka u haysto, boolisna u ah, militarina u ah. qofkay doonaan bay dilaan, qofkay doonaan bay dhacaan, qofkay doonaan bay xiraan, qofkay doonaan bay kufsadaan, qofkay doonaan bay bilaqaystaan, qofkay doonaanna Etoobiya ka gadana u dhiibaan. waxaan marka codsanahayaa maadaama anigu dalka iyo dadka iyo degaankaba aan u dhashay jeclahayna horumarkiisa iyo nabadiisa iyo quruxdiisa, waxaana codsanahayaa Soomaali weyn meel kastoo ay joogtaba cadaalad inay ku dhaqanto, islaamnimo inay ku dhaqanto, alla kacabsi inay ku dhaqanto, xurmo inay ku dhaqanto, xoogga ay isu sheeganayso inay iska dayso, nidaam dawli ah inay u gudubto, ka gudubto maleeshiya beeleed, boolis edab leh, ciidamo dambi baaris oo edab leh, ciidamo military oo akhlaaq leh. shacabka nin marqaansan oo meel ku qaylaya wuxuu leeyahay ninka hebela ii soo qaba, ii soo xir, ama nin baa siinahaya lacag laaluusha, nin leeyahay ninkaas ii soo xir, ii soo qabo. haween walaalayaal anigu haddaan caawo dhintane alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay taydii waa gashay. nin weynna wadkiisa waa yaqaanaa. anigu hadda waa dilinahay, si xun baan u dilinahay, xiniyaha, dhabarka, madaxa, qoorta, qori baagis baa laygu garaacay walaalayaal. kamana filaynin halkaan Hargeysa, waxaas kama filayn. laakiin shacabka waa la haystaa, shacabka waa la caburiyey, shacabka dulmi badan baa ka jira. laakiin dad sharaf la wey dadku, laakiin dulmi fara badan baa ka jira. waxaan marka xasuusin lahaa walaalahay Soomaali weyn, aniga magaca laygu dilay haddii Soomaali weyn. anigu Soomaali weyn qabiil aan ku caayay oo cay ku yahay ma jirto. qof kasta oo muslimana waa ogyahay, waa ku dhimanahaya, waana ku noolaanahaya, waana ku dhaqmahaya. tuulo walba oo Soomaaliya aan tago Soomaali weyn baan ku hayn. anigu qabiil gooni iyo cid gooni iyo maamul gooni ah anigu aan ku caayahayo ama aan ugu gafahayo ama aan wax ku yeelahayana ma aha. marka Etoobiya oo arrintaa ka xun iyo Kenya oo ka xun inay aniga dadkii walaalahay oo dhiigay ah oo Soomaaliyeed telegram inta u soo diraan dadkii iska xasuuqo, walaalayaal waa wax laga xumaado weeyaan. hadda waxaan leeyahay dadka Hargeysow, walaalayaalow, walaalkiin baan ahaa, idin imid, si sharaf leh aad ii soo dhaweyseen. ma xaq baa mise waa xaq darro waxa laygu sameeyey? dadka Soomaali weynna waan weydiinahayaa. saad ujeedaan gacantan xataa dhib iga gaaray, waan gariirayaa, neerfahoo dhanba teleefonku waa ruxmayaa. saad ujeedaan ma ahayn karo, gacantayda anoo dhan baa gariirahaya saacaddaas wallaahi. saad ujeedaan oo gariirahaya. walaalayaal marka waxaa weeye inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. haddii taydii gashayna hadde waa ilaahay mahadiis. gacanka xaqdaran baa i dishay. waad ogeydeen markaan kasoo baxayay saakay hoteelkii, ummadda islaamka o dhan baan ammaanay, Soomaali weyn baan ammaanay, cid walbaan ammaanay, dadka halkaan joogaan ammaanay, maamulkaan ammaanay, ducaan u duceeyey. marka laysoo weerarhayay makhaayad baan fadhiyey, makhaayadda wanaag baan ku hayay,
barwaaqada iyo nicmada iyo sharafta iyo karaamada deegaankan taalaan ka hadlahayay qabiil kuma caayin madax kuma caayin ninku markuu ifeerahayay garaacayay taliyaha yani musabixi anigu aan islahaa ninkii wuxuu sheegahayay sharcigaan ilaalinahayaa buu dhihi jiray laakiin sidii jabhaddii bay u dhaqmeen raggiisii wuxuu dhihi jiray markii la dooranahayo sharcigaan ilaalinahayaa sharciga islaamka anigu fahmay qur-aanku akrinahayay sunnadu akrinahayay laa ilaha illa allah muxamad rasuulullahi buu lahaa laakiin waxaa ii caddaatay hogaankii rag jabhad ah ayaa la wareegay oo manaxayaal ah waan naxariisanayn waan culimo xurmaynayn waan marti xurmaynayn waan ehelnimo lahayn oo sokeeyanimo lahayn oo dhaqankii islaamnimadii ka tegay etoobiyana si toosa u hoos tagay ayaa meesha loo wareegay baan anu aaminsana sababtoo ah qof soomaali weyn degaankeeda ka doortay iyaga oo u yimid oo dadkii jacaylka ii muujiyeen iyo wanaaggii iyo guryahay dejiyeen iyo qasriyada iyo sharafta iyo karaamada in laga naxo shacabkaa jecel ama laga masayro dadkaa jecel waxay ceeb ku tahay musabixi oo shalayta lahaa sharcigan ilaalinahaya nin qabiil dad ku dili kara ma jiro laakiin qabiil awood loo ninkaasu ii sheegtay ninkaasu sharci kuma socon taliyaha ah iyo ragga soo diray waxay ku socdeen wax foolxun bay ahayd shacabka hortiisa bay ugu dileen markaasaa shacabkana qof hadli kara male waxaas dadka jooga garow hortooda nin askariya kuma samayn karo shacabka hortiisaas wallaahi hawiye dhexdiisa nin askariya saas kuma samayn karo shacabka dhexdiisa nacam kuma samayn karo saas meesha kismaayo la yiraahdo nin askariya inta oo taliya uu yahay sargaal sare ah kuma samayn karo maxay ku dhacday nin leeyahay taliya la leeyahay oo gaashaanla xidibuhu ku raran yihiin walaalayaal darbiga intay igu dhajiyo oo laba askari soo qaxaysto darbiga isaara dadka hortoodii qori baag igu garaaco madaxa iga garaaco meel walba iga garaaco ilaahay baan ku dhaarshiyo Soomaaliyeey ma dhaqankii fiicnaaba soo waxaas ceeb maaha qof aan hub haysan anigu jabhad ma ihi hub ma haysto maxaa laygu xiray oo hadda heestii caldoon anigu ma xifdisani laakiin maxaa laygu xiray maxaa laygu dilay maxaa laga faa'iiday dilkayga maxaa laga faa'iiday cayrsigayga soo ceeb maaha ma sharaf baa maxaan dhimay ninku markuu ifeeray wuxuu leeyahay Soomaali weyn dadka Hargeysa aan ku arkay boqolkiiba 60 wallaahi billaahi tallaahi Soomaali weyn bay aaminsan yihiin wallaahi billaahi kuwa hadda dhakhaatiirta i daaweeyey oo saas madaxayga ii dhayay oo meel walba iga daaweeyey oo kiniinka i siiyey oo irbadaha i siiyey Soomaali weyn bay aaminsan yihiin okay qofku wuxuu doon aamini karaa doorasha lagu kala baxaa الاستفتاء عد بحن والشعب كو عدي كليين ما وحين رعنا إنا قوانو إنا نقوين تحس هذه السياسة نقطوي قفكو حدون آمين كرا حداد كبضان انت بدان أي نقطة عن قوانو أما عن شوقنا ووحلا يقان قفكو وحدون آمين سنانية الصغة موادنا هون حرمة كلها هاي وحو آمين سنية هاي لكن هل كان قرع عارد دالك يقوميس هايستو ولا هايستا دالك dad wadaniyiin oo yaraaday dad shisheeye u shaqeeya oo xukunka la wareegay ciidamadii la wareegay saraakiisha boqolkiiba 80-90 Itoobiya keensatay ayadaa soo tababarta ayadaa xidigaha soo siisay iyaday toos u hoostagaan iyaday mukhaabaraad u yihiin waasaas xalay marka walaalayaalow meel kasta aad joogtaan shanta Soomaaliya waxaan idin leeyahay gumaysiga ka xorooba حروبي كرنا وحروبي كرنا وميسي كحروبي حر نقضة أنا هناك بندل نجعلها أنا قبيارات إدين ما وضو ولا لوبة سجعل هذا سعفية قعما يسقب صدا ديدا قميسيك
reercon from amisom iska saara, ethiopia iska saara uganda, iska saara burundi, iska saara cadowga, diida siyaasadda foosha xun ee reer galbeedka, diida siyaasadda foosha xun ee reer yurub, xalaano ka saara, meel walba ka saara. badda 250 baa fadhida maraakiib ah, fishing boats ah, ka saara. ragga qabqablayaalka oo badaha saxiixaya diida. waxaan si gaara ula hadlaya xildhibaanada soomaaliyeed oo aan leeyahay taqu llaha tabaaraka wa tacaala, ilaahay ka baqa. taariikh baa qormaysa mooshinkan iyo xaaraantan carabtan nijaasta oo ilaahay ka fogaaday ay dalkeenna ku birlaqaysanayaan. diida, joojiya mooshinka u bedela difaaca dalka, difaaca dadka, difaaca qaranka, difaaca xuduudaha, difaaca hawada, cirka iyo baddaba u bedela. taas ka shaqeeya. haddaad muslim dhaba tihiin, haddaad gaala tihiin, ama munaafiqiin warka gaalaha shisheeye ay shilinkooda maaragtay dalkooda iyo dadkooda silca shacabkooda ka siistay, ilaahay waa idinla xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala. oo meeshaan joogo dadka ku nool iyo meel kastoo ay joogaanba soomaali weyn, haddaan caawa dhintay iyo haddaan noolahayba waan u duceeyey. ilaahay haydin dhowro, ilaahay haydin xifdiyo, ilaahay guulaha idin siiyo, cadowga allah idinka qabto. aniga xornimo u dirir baanaha, xornimo u dirir ayaan ahay. cuqdad anuu ma qabo. waxaa la ii dilay aan u dhintay caawa soomaali weyn buu aaminsan yahay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. amaa lay leeyahay ninkan qabyaalad buu ku socday, talo ay ree hebelew buu leeyahay. maya wallaahi markuu qoriga igu garaacay iyo feerka igu hayo, katiinadda igu dhigan tahay, soomaali weyn buu ku hayaa. inta soomaali weyn caayay buu ku hayaa. soomaali weyn waa xiroobaysaa insha allah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. etoobiya waa burburtay, civil war baa ka socda. kenyana waa burburaysaa, waa xiroobaysaa soomaali weyn. fa ina maca alcusri yusran, ina maca alcusri yusran, sayajcalu allahu bacda cusrin yusran, alaa ina nasra allahi qariib. mataa nasru llah, alaa ina nasra allahi qariib, alaa ina nasra allahi qariib, alaa ina nasra allahi qariib. guushu waa dhowdahay. haquusanina soomaali weynay, geesiyaal noqda, madaxiina kor u qaada. awowyaalkiin iyo abkiin iyo isirkiin sanku dulle inuu gumaysto ma ogolaan jirin, ma yeeli jirin. walaalayaal madaxiina kor u qaada, shahaada oo dhah laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah. ku walaalooba laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah. isku jeclaada, isku xiriiriya, isugu gargaara, ehel iyo sokeeye ku noqda. ka gudba qabyaaladda, ka gudba xinka, ka gudba xaasidnimada, ka gudba qaybsanaanta, ka gudba burburka, ka gudba in koox walba iyo qolo walba iyo qabiil walba uu calan gooniya taagto. ka gudba walaalayaal. waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. awood adugu keliga qabiil kastow waa tahay daciif weak. lakin you're powerful with your brothers and sisters. waxaad awood ku leedahay qawiyun biikhwaanik, walaalahabad awood ku leedahay xoog. walaalayaal waxaan ka codsanayaa reer Hargeysa, anigu haddaan dhintana waa dhintay, haddaan noolahayna jug xun baa i gaartay, dhaawac xun baa i gaaray. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. laakiin waxaan diyaar u ahay inaan dhiigayga u qubo midnimada soomaaliyeed, shanta soomaaliyeed guusheeda inaan u qubo baan diyaar u ahay. anagoo hub ma sito, anagu dhufayskuma jiro, anagu dado hebel iyo hebelow dagaalama ma dhihin, islaaya ma oran. qofku fikraddiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa wuu ku hadli karaa. hadduusan dad laynaynin, cid cayrsanaynin,
cid weeraraynin waa xaqdarro in la dhaho maxaad fikraddaadu saasay u tahay. xaqdarro weeyaan walaalayaal, dulmi weeyaan walaalayaal. reer Hargeyso waxaas ha laga joogo walaalayaal. hala iska qabto cadaalad darrada, hala iska qabto dulmiga, hala iska qabto maaragtay awoodda laysu sheeganahayo. waxaan ka naxsanahay dulmi fara badan oon arkay. waxaan ka naxsanahay jeelalka iyo xabsiyada oo buuxa, masaakiin badan oo ka buuxda, dhalinyaro fara badan oo ka buuxda, culamaa u diin iyo ducaad fara badan oo ka buuxda. ilaahay ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. ittaqu llaha tabaaraka wa tacaala. waxaa weeyaan xasuusta sheekh iblislaam ibnu taymiya wuxuu yiri raximahu llahu tacaala, dowladda caadiladda ah, dowladda cadaaladda ku dhaqanta weligeed way jiraysaa, weligeed way jiraysaa, wa in kaanat kaafira, xataa hadday dowlad gaal a tahay. war qabiil walowba dulmiga iska daa, war tuulo walay dulmiga iska daa, war magaalo walbay dulmiga iska daa. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. إن بدن بد قرآن كوار كيسان سومالي ويني وكم أهلكنا من قرية أضانا وبضنا إنتهى قوم هلاقني وركو قسقاتا كو إلهي هلاقي كو ألا دوك الله جري قارب ألا بدل قصي بيه قارب الله سبحانه وتعالى قيلك هلاقي قارب الله اسكو دري والإلهي وطوبت كينا صومالي حلكي إنه إسلامك، حلكي إنه توحيدك، حلكي إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أن قنن عصر الجاهلية ولا ليال كيف كانت حياة ذي عربت السدابة قبل بعثة محمد، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ليال السيبة يا هاي أنا وقتها ما يقدر دارم ولا غياب أنا بنت. ولا ليال الجاهلية يكونوا لاين، الظلم بيكونوا لاين. قبيلك حوق بدن هو وتسجنشري قبيلك أود دير بختك يعون جرين سنم يدي عابد جرين وحويان وحا هيستي قميسي تو سوبر باورس لما قوة دود باجرتي عالمك الفرس والروم ما أنتي وحاجرة the two super powers America and the Russians. marka furuskii ruumkii hortood walaalayaal waxaa soo maray powerful nations baa soo maray ama quwado ama awood leh. ilaahay waa halaagay subxaanahu wa tacaala qowmu thamuud iyo qowmu caad walaalayaal. yaa maxay dhaheen man ashaddu mina quwa, who is more powerful than us. waxay dhaheen yaa naga awood badan, yaa naga xoog badan. waa kibreen walaalayaal. waryaalna kibrin, waryaa nicmada lagu kufrin, waryaa nicmada lagu kufrin, waryaa nabadgelyada lagu kufrin, waryaa barwaaqada lagu kufrin. war ilaahay ha loo shukri noqo, war dulmiga la iska daayo. waxay dhaheen yaa naga awood badan. awalam yarow, ma waynan u jeedin ogeyn arkaynin ana allaha aladii khalaqahum, allihii abuuray huwa ashaddu minhum quwa, inuu ka awood badan yahay, ka xoog badan yahay. walaalayaal ilaahay muxuu ku halaagay? dabayl. fa arsalnaa calayhim riixan. walaalayaal dabayl baa alla ku halaagay. qowmu caad kadabat thamuud caadun bilqaarica. yaa waxaa igu darsamay wadnaho ay garaacaya walaalayaal, wadnaho ay garaacaya igu darsamay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun.
إنا لله وإنا إليه راجعون. walaalayaal waa dhacday tan waa dhacday. waxaan idinka codsanayaa aniga dhibka i gaaray yaan qof loo caayin, yaan qof loo dulmin, yaan qabiil loo caayin. beri baan ka hay arrintaas. anigu hadalkayguna maaha fidno inaan ummadda ka dhex abuuro. isjeclaada soomaaliyeed, soomaali weynay iscafiya, soomaali weynay garbaha isqabsada. fattaqu llah wa aslixuu daata baynikum. ilaahay ka baqo heshiiya, saasaa la yidhi. asalxu khayr. walaalayaal waa gariiraya, gacantu ay gariiraysaa. anoo dhan baa jirracoonaya, qandha ay haysa walaalayaal. inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxaan filaynay cadaalad, waxaan filaynay walaalnimo, waxaan filaynay ehelnimo, waxaan filaynay maamul wanaag. meel walba, tuulo walba, xaafad walba, albaabka haddaad u baxday nin maleeshiya beeleeda maaragtay xabad iyo qori haysta. nin maleeshiya beeleeda, ciidan isluub leh, ciidan edab leh, ciidan akhlaaq leh, booliis military ma leh. wax etoobiya u shaqeeya way kulli. khalaas, qof wadaniya waa baqayaa, qof dalka jecel waa baqayaa, qof horumar jecel waa baqayaa. koox yar oo xoola haysata yaa iska dhuuqaysa, bes iska dhuuqaysa. qofka hadlana waa toogasho iyo xarag iyo xabis iyo in loo tarxiilo etoobiya meel walba. muqdisho waxaa ka jira, waad la socotaan dulmiga. kismaayo waa la socotaan dulmiga ka jira. baydhabo waa la socotaan dulmiga ka jira. gaalkacyo waa la socotaan iyo garowe dulmiga ka jira. caabud waaq iyo garbahaari dulmiga ka jira. jigjigo iyo qalaafe iyo harar iyo hawaash ina ilay. xasuuqa ku haya muslimiinta oramada, xasuuqii lagu hayo soomaalida qabiil. war dulmigaa la iska daayo. iyaakum adulm fa ina dulm ظلمات يوم القيامة. beware of wrong doing. warka taxadara, war iska daaya dulmiga. waxa weeyaan waxaan la yaabanahay, lama yaabani aniga nin taliya ah. ilaahay baa taliya gaashaanla ama jenaraal ah oo aniga la igu soo diray etoobiya igu soo diray, lama yaabani. laakiin waxaan la yaabanahay nimankii walaalahay ahaa oo culummada sheeganayay, oo wadaadada sheeganayay, meeshay soo dhaweyn lahaayeen, meeshay walaalay dhii lahaayeen, inay anigii message iyo taxin iyo meel walba, masaajidyadii iyo jaamacadihii iyo dugsiyadii qur-aanka iyo meel walba ay leeyihiin. ninkiibaa yimid, ninkii balaayada ka sheekayn jiray, ninkiibaa yimid, hala xiro, hala dilo, hala qabto. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inay u dabaaldegeen qaarkood aniga dilkayga. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. arrintaas aan leeyahay dhaqankii islaamka maaha, dhaqankii fiicnaa maaha, dhaqankii walaalnimadana maaha, dhaqankii laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullaahi ku salaysnaana maaha. ilaahay ka cabsado. maxaad ka helaysaan haddaan caawo dhinto? soo walaalkiin midnaa dilin. maxaad ka helaysaan dilkayga? ma maxaaraad u helinaysaan? etoobiyaan baad u helinaysaan? ma kufaar baad u helinaysaan? adoo diin sheeganaya, oo xisbul islaam sheeganaya, oo xisbul itixaad sheeganaya, oo xisbu ahlu sunna waljamaaca sheeganahaya, haatana dhuusa mareeb taangiga maxaaradii fuushan yihiin. fa maxaari bay ku hadlayaan. waa kuwanaa kismaayo sidoo kale kulligood wadaaday sheeganaya, sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo ninka madaxtooyadaas sheekh daahir baa la dhahaa, waa etoobiyaan. haye shaafi raab waa ninkii buuraha saliid ka dagaalamahayay, cabdullaahi raabigan al-shabaabka walaalkiis weye, maantana waa etoobiyaan. sheekh axmed madoobe waa kana etoobiyaan. haye sheekh axmed mansuurkii shalayto haddii ilaahay ku idmahayo
weligiis hadii ilaahay ku idmaayo yani intaasoo qarax ka qayb qaatay maanta wiilkiisa wuxuu ku dhintay xudur isagoo shabaab la dirarhaya etoobiyaanka lama dirarhaya isaga etoobiyaankii baa garab isku dhufays ku jira subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim maxaa shaati la isu gashaday maxaa la isku dheelay maxaa kursi diin la siistay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay marka wadaadada soomaaliyeed walaalooba inama almuuminuuna ikhwa almuslimu akhu lmuslim ayaad akrinaysaa haddana walaalama tihiin xisbiye iyo ururdiimeed ayaad u kala baxdeen firaq baad u kala baxdeen kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun qofkii aan xisbiya ururdiimeed ahayn waa fongaran yahay al-shabaab haddaad ahayn waa ku dilayaan ixtisaam haddaad ahayn waa ku dilayaan akhwaan muslimiin haddaan ahayn waa ku dilayaan suufi haddaad ahayn waa ku dilin nin walba haddaadan urur ahayn laakiin aada banaankaaga martid kitaabka ilaahay sunnada waa ku dilhayaan walaalayaal anigu miskiinka allaa lay dhahaa caalim ma ihi oo sheekh ma ihi oo ma ihi dalka waa jeclahay diintana waa jeclahay dadkana waa jeclahay dunuubteydana waa fara badanta ilaahu icafi qofkii aan u gafay iyo qabiilkii aan u gafay iyo cidd aan u gafay kun iyo kow jeerna waa idin iray iyo culamo iyo caamaba walaalayaal wacfa leeyi masaabax raalli ahaada waxaas waa ka gudbay waa ka tegay kun jeer baan idin iray haddaad ilaahnimo sheeganaysaanne hadda ii sheega waxbaad laysaan 1 milyan iyo qof baad disheen ummad islaamaad dhacdeen oo billaqaysateen xaaraan baad ku nooshihiin haddana masaajidii baad ka addimaysaan oo ka khudbaynaysaan weli dulmigii baad ku jirtaan iyo qabyaaladii waxaa weeye anigu intaasoo dhan ma gelin haddii gafiga dhacay walaalayaal raalli ahaada ama aniga dilkayga anigu dilka la ii geystay aniga ehelkayga ay dilay dadkay baana i dilay laakiin anigu waxaa cadowga aan la dirirayo etoobiyaanka soo diray weeye walaalayaal doqomaha noqonina anigu wiilkiinni baan ahay inankiinni baan ahay dhiiggiinni iyo dhacaankiinni baan ahay sabab aad ii dishaan ama cadowtinimo igu muujisaan ama saacaddan ii cayrsanayo baaritaan aniga aan dhumasho ku jiro saacaddaas qaybta howlgalladu ay cayrsanayso saacadda iyo minidkaas etoobiyana ay amar i dul dhigta in laysoo qabto in la itoogto la idilo la jir dilo walaalayaal xaq darro weeye idinma qabato reer geesow idinma qabato madaxdow idinma qabato waa dulmi walaalayaal waxaan kun iyo kow jeer u mahadnaqayaa walaalahaygii soomaaliyeed oo isoo dhaweeyey hargeysa igu soo dhaweeyey jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum hoteeladii laigu soo dhaweeyey makhaayadii laigu soo dhaweeyey xafladihii lai sameeyey walaalayaal jazaakum allahu khayr inta xun ama sida xun u fakaraysana waxaan leeyahay ittaqu llah ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada qof ehelkaa ah oo walaalkaa ah oo sinjiga ah oo soomaaliyeed inaad dhiiggiisa ku farxdid ama aad dishid ama aad cadow u dhiibtid wallaahi baadan boqor ku noqonaynin wallaahi baadan guul ku helaynin wallaahi baadan sharaf ku helaynin wallaahi baadan maaragtay kursi ku fadhinaynin ilaahay laga cabsado anigu dulmi kastoo i gaaray madaxda waa u duceeyaa ilaahay madaxda ha xifdiyo ilaahay ha karaameeyo ilaahay ha ciseeyo soomaali weynna allah quweeye madaxda allah ha quweeye ilaahay ha hagaajiyo waxaan idinka codsanayaa maanta dilka aniga la ii geystay ha noqdo dilkii loo geystay qof soomaaliyeed shanta soomaaliya ha noqdo qof dilkii loo geystay qof soomaaliyeed oo muslima oon waxba galabsan oo miskiinka alla oo kale ah aan hub haysan awood in loogu faano qabiil in loogu faano xoolo in loogu faano rag in loogu faano waa nacasnimo haddaad rag tihiin cadowga etoobiya iska dhiciya haddaad rag tihiin ina ilayeliyo booliiska iska dhiciya haddaad rag tihiin geesiyaal noqda haddaad rag tihiin
قبيلوين كاد صلينا سانشوتشية قام والله يا المركب حد الله يحي تدركتهين كود ودلفك أو جواسيستا اسكقبت تدركتهين قبيل ولو بدأ ذي برجع يهودا الدفاع علنك اللي أردس قبيل ولو بقى deegaanka ilaahay ku siiyey in aan la dhihin bad iyo beriba Ethiopia iskala 20% 30% rag haddaa tihiin way rag dhale haddaa tihiin shacabka waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaanba fidna ka dheeraado qabyaalad ka dheeraado xumaan ka dheeraado walaalaad tihiin qabiil kastoo aad tihiin walaalaad tihiin qabiil kastoo aad tihiin ilaahay ka cabsado gacmaha isqabsada إلهي كعب صدق عمها يسقب صدق إلهي كعب صدق عمها يسقب صدق حوي دينيا dadka Soomaaliyeed ee goboladan degan waxa weeye anigu dadkan walaalahay weeye degaan hadii la dhahna waan ka soo jeedaa waa kuwana guriyaha oogay halkan ku yaala Berbera المغشين ستتنشر كي سعد موسى وإن كغش كيني حاجة تبع سرين وهالري بربرا ري برعانا هين وحوي دل كان ودل كيجي وي نين تقرأ واب صومالي برتين إذا محيو كنت شربان ليه انت تقرأ يا واب صومالي برتين حتى لو قدي روغوية برتواريه كوهي أنا إذا محيو إذا ملحن ودل كيجي waa dadkaygii waa diintaydii waa dhacankaygii haddii la leeyahay qabiil gooniya iska leh haa waa layga leeyahay mar waa ardullaahi waa dhul ilaahay waa ardul islaam oo muslim baana laygama xigo marna waa u dhashay oo waa dhulkaygii waa dhulkaygii markaan ku leeyahay waana dhul Soomaaliyeed oo waa dhulkaygii waa labo waa dhulkii awowayaalkii weeyaan intaasoo isku darsaday yaa ayaan xaq ugu leeyahay marka dadka halkan faalooyinka beenta ku soo qorahaya oo fidna walayaalka ah oo qurba joogta ah wax shadku ka tagay oo la hal dilo hal la xiro hal la tarxiiro waxaan idin leeyahay waa dhulkii awowayaalkay weeye wallaahi baad iga xigin adigoo Tigray ah abham Tigray yahay maqalna ka yimid kartoonada kansarka laga qaaday gada kuwaasna xaqan idin leeyahay xaq ayri hadii ay kudmay laga xasaaro dalka laga saaro amarka boqorka shanta Soomaaliya qaad shanta hada la marka walaalayaal ana dhulkay weeye dhulkii ehelkay dhulkii walaalahay dhulkii awowayaalkay weeye waxa weeye saas ay tahay in anigana laygu ceyrsado dhulkii awowayaalkay uu yahay yaa walaalayaal yaa walaalayaal hadda intaasaan hadlayay ma wax ceeb aad iga maqasheen hadday wax dambi aan ku hadlay ii sheega ma cid baan caayay maya dulmiga laygu sameeyaan ka hadlay dadka muslimka lagu yaqaanana waxay ahaayeen muslimiinta kaanuu waqaafiina calaa kitaabillaah marka aayad lagu dul akhriyo xadiid lagu dul akhriyo gar loo dhigto way garbixi jireen war dadka muslimiinta ahow war dadka walaalahay oo dhibka ii geystayow iga garbaxa maxaan idiin dhimay walaalkiin baan ahaa Soomaali weyn idinka doortay jacayl uu idiin qaba halkan idiin yimid dalkiisa iyo dadkiisa iyo ehelkiisa u yimid caruurtiisa u yimid maxaad igu disheen maxaad ka faa'iideen dilkayga maxaad ka faa'iideysan cayrsigayga yaad ku raaligelinaysaan ma Itoobiya waa jiraan dad qabyaalad ay dishay yaan dambi ka galay anigu ii sheega ma qof baan dilay ma qof baan dhaawacay ma qof baan caayay ii sheega walaalayaal okay wax maada dilin wax maada dhicin wax maada xadin
adoo qurbaha joogtaa dad ka hadashay okay anoon imaan iyo anigoo imidba walaalayaal icafiyo raalli ahaadaan idin iri ilaahay baan idinku dhaarsheey intaas haddaan iri oo idiin imid maxaad igu dilaysaan waxaan leeyahay dadka 90% 80% waa dad sharaf leh qabiil kasta halkaan jooga waxaan leeyahay inta xun gacanta qabta inta xun gacanta qabta walaalayaal aniga fariintayda waa intaas qof ma caayahay qof ma ceebeynahay qof ma cambaareynahay madaxda Soomaaliyeed Soomaali weyn ilaahay ha xifdiyo ilaahay ha dhowro wakaas ilaahay baan ka baryay subxaanahu wa tacaala Soomaali weyn barwaaqo Allah siiyo Soomaali weyn Allah ciseeyo Soomaali weyn Allah sharaf Soomaali weyn xor Allah ka dhigo Soomaali weyn gumaysiga Allah ka qabto bad iyo biriba Allah gumaysiga ka dulqaado anagu saasaan ku duceeyay qof ii dhibaateeyayna anagu hadaf weyn baan leeyahay kuwa nacasiyada oo dadkooda meel walba ku xasuuqaya shanta Soomaaliya ku xasuuqaya gumaysiga u adeegaya ka jooga maxaa laga dheefay dhiibistii qalbi dhagax maxaa laga dheefay walaalayaal dhiibistii qalbi dhagax Soomaaliyeed maxaa laga dheefay dhiibistii qalbi dhagax maxaa laga dheefay walaalayaal maxaa laga dheefay haliyey fara badan oo la dhiibay oo shanta Soomaaliya laga dhiibay maxaa laga helay dadka ay xirxiratayow ragga ay xirxiran yihiin xabsiyada waa buuxaan meel walba soo daayay qabiil walowba soo daa maamul walowba soo daa ittaqullaha tabaaraka wa tacaala la xisaabtama shacab weynow shacabka Soomaaliyeed saasaan idin leeyahay waxaan idin dardaarmayaa walaalayaal heshiiye gacmaha isqabsada waxaan anigu ka codsanayaa marka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee deegaankan degan walaalayaal odayaashii Soomaaliyeed culimadii Soomaaliyeed dhalinyaradii Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed haddii ilaahay ku idmahayo haweenka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed walaalayaal walaalkiin baan ahay wiilkiin baan ahay ehelkiin baan ahay insaan la isilciyo xaq uma aha waa dhulm waa gardar waa xaraam waa alla ka fogaansho cuquba alla ka dhalanaysa dad fara badan oo saasoo kale loo dulmiyana waa xaaraan askarta akhlaaq loo yeero discipliin ha la baro garsoorka iyo cadaaladda ha la xoojiyo shariicada islaamka lagu dhaqmo kitaabka sunnada laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah hooskeeda ha la harsado gumaysiga ha la diido iisoo qabaya iisoo xirtaan ha la joojiyo qurunka iyo qabyaaladda ha laga gudbo ha loo gudbo dad Soomaaliyeed oo wada nool qabiil kasta ay yihiin deegaan kasta qabiilka degan dadka degan sharaf inay ku dhaqmaan waxay suquuraan cadaalad ku dhaqmaan islaamnimo ku dhaqmaan waxa weeye rag baan isoo wacay nin baa maanta isoo wacay wuxuu yiri waxaan ku tusayaa meelihii dowladdii Soomaaliya dhibkii ay geysatay xasuuqii ay geysatay ayaan ku soo tusahayaa meelihii dadka lagu xasuuqay waan ka tacsiyeynayaa qof kastoo muslim oo la dulmiyey hargeysa intii lagu dulmiyey muslimiintii lagu dulmiyey dadkii guryahooda lagu laayay dadkii la qaxiyey dulmi bay ahayd ilaahay raalli kama ahayn waa ka tacsiyeynayaa xaal marin baan ka bixinahayaa Soomaali weyn baan la yaga raalli geliya walaalihiin magdhow ka bixiya agoontii qokoriya guryahoodii u dhisa ilaa heer caalami heer dowladeed magdhow ha lagu bixiyo ilaahu raalli kama yihi qabiil kastoo la dulmiyey raalli kama yihi marka dadka waxaas xasuusan ama aabahood ay jabhadihii ahaayeen war aniguba maxamed siyaad barre waan mucaaraday soo in adeerkayaan mucaaraday anuu reediino in adeerkay uu yahay cid iga dhawaysa jira maan mucaaraday laakiin waxaan leeyahay gardaraan ku mucaaraday siyaad barre
إلهي هون حريست إلهي هون حريست sababtoo 86 bashil baabuur galay xasan abshir bashir galiyay baa dhaawacmay buul buu noqday wax ma kala garanaynin wallaahi billaahi tallaahi maxamed saad bir ma kala garanayn dhaawac buu ahaa dhaawac aniga gaaray meel walba layga jabiyay qooraha layga garaacay qoorta layga garaacay dhabarka layga garaacay madaxa layga garaacay oo caawa aan daakun aan ahay aan kulligay gariirahay jarcaynahay saasoo kale waa maxamed siyaad barre dalka qabiil kastay ahaayeen dadkii maamulanayay Mareexaan baa isnacay reer diini baa isnacay waxa weeyaan dad gooniya dalka hadii la kudmahayo xukumay oo kala duwan oo maafiya ah oo qabiil kasta leh ayaa dadka laayay isku laayay xamar markii la soo galayna saraakiisha Mareexaan siyaad barre ka carareen qurba joog waxa u badan beesha Mareexaan Soomaaliya oo dhan baa og Mareexaan waa ka yaacay madaxtooye waxa ka soo jiiday Morgan baa ka soo saaray madaxtooye maxamed siyaad barre Soomaali weynay waxaan idin leeyahay walaalayaal anigu maxamed siyaad barre qabiilkiisii ah iyo anoo Soomaali weyn magaceeda ku hadlaya boqorkan Soomaaliya raali gelin baan ka bixinayaa xasuuqaas ilaahayna raali kama ahayn shabaadiina ayaguna xasuuq waa geysteen marka xaway walaalahay waxaan leeyahay waxaas hal iska iloobo rag noqda musabixi oo madaxweynaha maanta halkan ka ah oo la doortay raggii soo dagaalamay buu ahaa laakiin waxaa looga baahan yahay inuu shacabka halmaansiyo wixii hore asaguna iska halmaamo cuqdadana carruurta lagu beerayna laga saaro oo dadka deegaankan degan qaarna dawladdii bay taageersanaayeen oo badankooda dawladdu way taageersanaayeen qaarna jabhad banaanka timid bay ahayn oo ujeedda lahaa ujeedadoodii waa la gaaray waa gaareen dawladdii waa burburtay waa dhacday waxa weeyaan marka in qabiilo magacyadii shalayta la adeegsado waa lagu sii kala fogaanayaa hadda waxaan arkayaa kuwa soo qoraya faqash walaalow faqash hadda iska daa walaalow hadhihin faqash walaala dhe walaalkayga degaankayga ahow aan isku maamulka nahayow haddaad xataa maaragta leedihiin Somaliland baan isla nahay war hadda faqash ma dhulbahantaa faqash gudubiirsay baa faqash la faqash ma waxaa warsangeli war waxaana la iska daayay wixii fidna abuurahay hadda intaasoo kun baa soo qoraysa ereyga faqash ilaahay ka baqa marka san waa lagu baabaaya ittaqullah culimadu ha istaagto oo dadka wacyigelin ha u samayso dib u heshiisiin la sameeyo oo dambi ha laga dhigo waxa erayada tan la adeegsanayo ummadda kala fogeynaysa dambi inay tahay maxkamad la isku saaraya ha laga dhigo war carruurta cuqdada ha laga daayo war muslimka walaalo weeye war amxaarana haysata war tigreebana haysata war magaciin jir war ragga Soomaaliyeed oo sida Suudaan war hawiye iyo daaroodo war dir iyo daaroodo war magaciin jir war ragga sharafta lahaa war culamaa diinka Soomaaliyeed war mamooshin iyo xaaraan iyo baqti baad ku jireysaan war ma imaaraadka carabta ninkan miskiinka ah oo eelkiisi gooyay maxamed cabdullaahi farmaajo hooyadii aan ka warhayn oo carruurtiisa aan ka warhayn oo xaaskiisii يعني أي لتشوكتو دتكيس كلا كورهين أو ولا ليس أي كقيل يعني براه بالشدة أو ولا اللي رال له ولا شيء إنه مدح الصلاح ومدح قدوم كذا ولا شيء ترون هاي أو قيل أمسوا هاي ومرحان وين جوي ورير دل الأجاز دين جوي ورير دين جوي مرحان وين جوي صدق جوي أو دارود جوي مياد هويه عيرسن إنسان عاوة ولا ليال ورئيس إلهي كياب والله مد إيدين دامين إيدينا هلين ورعمر عبد الرشيد وإلهي كياب وأنا نفتي قصي بحسن دردارا كاس دريا ولا لو عمر عبد الرشيد وإلهي كبق ورإلهي كياب وكل جن إلهي كياب ورعبدولي قاس وإلهي كياب ورعقت إمارات كي لا مشكي حاران تبضاها يد كذا قديسان إلهي كياب والدولة دست ورقرصور عادي لسمايست وركو مشغولة هرمرنت تعلينت وحبرشدة بيرها كلوميسك ديب هشيسينت الله كعبسك ورمتا وحاكو مشغولين ورمركز مدودان ولا لين سوماللاند وإمادة والله فريست oo ka garbax idinkoo midaysan oo gacmaha is haysta 150 ha u kala bixinay walaalihiin u imaada leeshi
dhibkooda dhagaysta ka raaligeliya xasuuqii aad u geysateen dhibkii aad u geysateen barakicintii aad u geysateen u cudur daara markaas heshiis la gala dhagaysta dhibkooda waxay rabaan dhagaysta waxay ka baqayaan dhagaysta u cudur daara ragga waa walaalihiina waa idin jecel yihiin dhibkiina wuu dhib oo idin dhabaya dhibkiina raalli kama ahe ragga walaalihiin weeye in idin jecel yihiin laakiin idinkiibaa Ethiopia in kala gogoys oo gabre gabdhihiina kufsanaya ciidama iyaga idin ah ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala midnimada ka shaqeeya ugu dambayn ilaahay u toobadkeenno ربي أن نقلنا سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون علماء عامو إلهي أن نقلنا سبحانه وتعالى نسعفنه ولا لونه أنا السعد دارنا أنا سعب أسطرنا سعير سقي سقين طيب سعيرك شاق الشغل اسكدين أنا وسكستو أنا عريسنا هاي سكستو أنا حناقسنا هاي سكستو سعادة سحنون وهاي إيه هايو غير الرسول كريم صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة منك رقا the strong man is not the one who wrestles the man منك رقا لقده ما ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. The strong man is the one who controls his anger. ninka ragga waa ninka caradiisa celiya ninka iskontrola haddaad arki jirteen aniga qurbaha inta jooga markay aan dhib la ii geysto iska caaytama ama iska cantara baqash ku hadla dalkayga waa ku caafimaaday hargeysa waa ku caafimaaday aragtidii aan arkay dadkayga waa ku caafimaaday soo dhaweyntii jacaylkii maxabadii hargeysa layga muujiyay waa ku caafimaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin intaas inka bad xikmad baan ka helay culimadii shuyuukhdii talooyinkii walaalahan saaka u dumisna aldoon iwaaninahay ood maqlayseen khayr allah siiyo jazaahu allahu khayr odayaashii golihii guursada cid walba ay soo dhaweynaysay jazaakum allahu khayr walaalayaal waxaa weeye dhibka la ii geystayna aniga ogay wuxuu dhihi jiray ku caanbaxay labada buug mid bay gelin buugga adduun iyo midda aakhiro midkood haddii wax lagu yeeshane weligiis baan wax lagu leeya ma arkine ciddii wax u sheegata waa siin jiray haddii dib loo geystane iska cafin jiray iska cafin jiray iska cafin jiray iska cafin jiray والعافين عن الناس الله يحب المحسنين لا يحيل والكاظمين الغيظ كو عرض قرية أهل الجنة those who hide their anger who control it وإلهي جنوب بالشارعية رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث صحيح عنك أوصني يا رسول الله give me advice أو messenger of Allah رسولك الله ويواني وحي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لا تغضب حارون عرضي دي وان قريه دول عدين بانكو بدلي عفس بانكو بدلي دان عاود انتنا وعفس دان داوعاني يوسو وينادنه oo disable aan noqdo dhiig igu furmo ama stroke igu furmana waa cafis walaalahay laakiin cods gumaysiga iska dhiciya gumaysiga la dirira wayaanada la dirira liyu boolis la dirira ciidamadooda la dirira qabiil walba koox walba degmo walba deegaan walba tuulo walba diida carab diida عجم جيدة بديهن برجينا دلكينا إلى الصدى زمالي وين قوليست الله يدعي السيء شرفكم أولادا
soomaali kuma mashquulaya anigu maryam dhasaglaan u jeedaa horaala kayaata milalekh taariikhdii baan hayaa aniga maabkayga waa kaasaa maabkayga waa kaasaa dalkayga waa kaasaa soomaali weyn baan aaminsanahay cadowgeennu waa kuma buuggaa nin beesha isaaqa qoray taariikhdaana baraysa cadowgeennu waa kuma nin beesha isaaqa qoray cadowgeennu waa kuma cadowgeennu waa kuma taariikhdaana baraysa dhulkii awowgaa ninkii qaatay waa ninkaas cadowgaagu awowayaalkaa ninkay la dagaalameen kaas weeye cadowgaagu midka hadda doonaya badahaaga iyo birigaaga inuu qaato kaas weeye cadowgaagu midka ciidamadihiisa dhulkaaga ay joogaan kaas weeye cadowgaagu maabkaygu waa kaas khariidadayadoo taas cadowgayguna waa kuwaas dalkaygii dhacay badahaygii dhacay berigaygii dhacay boqorka shanta soomaaliya miskiinka alle United States of Greater Somalia ayuu aaminsan yahay taas qabiil uga horjeedo iyo koox uga horjeedo iyo degaan iyo maamul uga horjeedo ma jirto ha ka xanaaqin haddaad muwadani dhaba tahay haddaad soomaali dhab tahay haddaad damiir leedahay waxaa lagu dhahaa maabkaas Somali Peninsula aljaziiratu Soomaaliya waxaad gashaan librariyada Mareykanka qaybta waxaad gashaan maabiska soo qaata waxaa idiin soo baxaysaa Soomaali walaalayaal waa ka xumay walaal raalli ahaada hooyaday baa isoo wacday waa ka qariyay dhibkayga kama nixin ehelkay baa isoo wacay waa ka qariyay dhibkayga carruurtayda Hargeysa joogta ilmeynaysa waa ka qariyay dhibkayga uma sheegin ninka raggaa saasa lagu yaqaano qofka muuminka ah fidna wala lama noqdo walaalayaal alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ku gabagabaynayaa dad baa halkan waxay kusoo qorayaan bagah in lagu dila xaq weeye dadkaasi waa dadkii dhigyacabka aabayaalkood ahaayeen waa dadkii aabayaalkood jabhadaha ahaayeen waa dadkii aabayaalkood geela dhici jireen waa dadkii xaaraanta ku soo koray waa kuwa xoogga ku haysta hadda dadka degaamada Soomaali weyn oo dhan xaaraanta ku koray weeye guryaha ku dhistay xaaraanta weeye kuwaas nin nasaba nin gob ah nin mu'min ah nin alla ka baqaya saasuma hadleen qof muslima oo marti ah oo ehel oo dalkiisa iyo degaankiisa jooga ma dhaheen sax laaya xera dila ma dhaheen waa dadkii dhigyacabka ahaa weeye dhigyacabka weeye dadkii dhigyacabka ahaa baa haya inay waxaan leeyahay dadkaas xishooda dadka mu'miniinta ah dadka akhlaaqda leh waa kuwii soo dhaweeyey qabiil kasto ay yihiin hawl mahad celinaya beesha Sacad Muuse oo si sharaf leh soo dhaweysay beesha Habar Yunis oo si sharaf leh soo dhaweysay hadda waxaan la joogaa oo aniga dhaawacayga dhayahaya daweynahaya yaa beesha ciida gale ilaahay khayr ayaan siiyo beesha ciida gale weeye hadda aniga dhaawacayga daweynahaya waa Habar Yunis waa Habar Jecelo waa Sacad Muuse waa qabiiladii oo dhan ba daweynahaya Habar Yunis Sacad Muuse Habar Jecelo Habar Awal Arab hadii ilaahay kidmahayo qabiiladii oo dhan yani baa daweynahaya walaalahay saas batay aan idin amaanahayo يعني walaalo aan dhihi karo kooban laakiin ilaa hadda dad odayaala ama akhyaara ama ganacsata ama xukuumadda oo aniga arintayda ka muujiyay inay ka xun yihiin ma jiro laakiin wax yar walaal ma ka karo ma jiraan bal in rag munaafiqiin qurbaha ay ka soo waxay leeyihiin ninkii qabta aniga iyo sakaraadka aad ilaahay kudmahay aniga hadda ceeb astroyo waa la idaaweeyay waa la habeeyay waa la fiicnay waa la qurxiyay waxaan u leeyahay
fidnada lama bumbuniyo, waa la qariyaa, ceebtaa la qariyaa, waa la qariyaa ceebta intaan qarin karo waa qarinahayaa. kuway ceyrsanayana waxaan leeyahay waad ii jeedaan, odayaasha iyo culamaa udiinka iyo cid walba waxaan leeyahay allah idin sharfo. kuwii dhibka ii geystay halala xisaabtamo, anigana ha layga garbaxo, cayrsigana ha layga daayo, dulmiga muslimiinta la cayrsanayana ha layska daayo. dalku waana deeqaa, bad iyo biri naga badan, nabad iyo walaalnimo iyo islaamnimo iyo cadaalad ha lagu noolaado. baqdinta iyo cayrsigana ha la joojiyo, cagajuglaynta iyo qoriga iyo ceejada iyo xabiska iyo xariggana ha la joojiyo. ha lagu noolaado dulqaad, isxurmayn, karaamo. qof kastoo muwaadina karaamo u leeyahay, muslima walaalkaa ah oo soomaaliyeed. taasaan idin leeyahay. haddii taa la waayo kulligan waa baaba'aynaa. shalayna waa baaba'anay, maantana waa baaba'aynaa. waxaan ku gabagabaynahayaa kuwa yani warxamatashiirka walaala wax yar ka bacay wax yar waay walaala. waxaan ku gabagabaynahayaa an tarbaqashkii mala yacni kuwa ku hadlaya waladiina hum can illagwi mucriduun. ha laga jeesto ilaahay dartina ha loogu sabro dhibka. watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل دين.